dowladda Soomaaliya iyo midowga Yurub ayaa soo bandhigay 3 mashruuc oo fududeynaya in dalka maalgashi shisheeye iyo mid sukeeye lagu sameeyo. Mashaariicdan ayaa la sheegay inay horseedi doonaan maalgashi ballaaran oo lagu sameeyo kaabayaasha ganacsiga, kuwa bulshada iyo tan dhaqaale. Kulanka oo Muqdisho ku dhex maray wasiirka qorsheynta qaranka, wasiir ku-xigeenada wasaaradaha maaliyadda iyo ganacsiga, iyo safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa lagu qiray inaan Soomaaliya ku tiirsanaan karin deeq bini'aadanimo loona baahan yahay in la helo maalgashi dhammaystiran. Safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya Danjire Nicholas Berlanga Martinez ayaa sheegay in maalgashigu uu xilligan muhiim u yahay Soomaaliya. Waxa uuna yiri we were more focused on social services, of course, or big infrastructure. Waxaan diiradda saari doonaa arrimaha bulshada ee kaabayaasha dhaqaale iyo horumarada Soomaaliya. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan wada joogno saaxiibo qaali ah oo uu ka mid yahay wasiirka qorsheynta oo aan ka wada shaqeyno mashruucyada horumarinta oo ay si wanaagsan u maamuleen. Waxaana ka wada shaqeynay arrimaha caafimaadka ee COVID-19 iyo kaabayaasha dhaqaale. Wasiir ku-xigeenka ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya Cali Maxamed Sheekh Bagadi ayaa sheegay in dawladdu ay dalka u diyaarisay in la maalgashto. Ministry of Commerce plays a key role of engaging the private sector and producing policies and laws which can support. Wasaaradda ganacsigu waxa ay door weyn ka ciyaartay soo saarista sharciyo iyo siyaasad lagu shaqeeyo kuwaasi oo taageeraya nooc walba oo marti iyo maalgashi ah oo dalkeena ah. Wasaaraddu waxa ay sharciyadaasi oo idil u sameysay helidda qorshe ganacsi oo horumarsan, waana tan keentay mashruucyadan iyo hawshan socota. Having said that, we have discovered and realized. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Cali Qalloocow ayaa sheegay in dalku uu ku jiro soo kabasho tartiib ah walow ay jiraan dhibaatooyin barbar socda. Can understand, but development is possible in Somalia. Mogadishu should be an example. Horumarka Soomaaliya waa mid muuqda. Muqdisho ayaana u ah tusaale la taaban karo. Dhibaato ayaa socota laakiin waan horumareynaa, waana sii socon doontaa. Shakhsi ahaantayda iyo ka wasaarad ahaanba waxaan dalbanaynaa in muhiimad gooni ah la siiyo sidii loo soo kabi lahaa kaabayaasha dhaqaale ee waddanka. The highest priority for the private sector investment. Wasiirka qorsheynta Jamaal Maxamed Xasan waxa uu sheegay inay dalka uga faa'iideynayaan fursadaha maalgashi iyo mashaariicda midowga Yurub uu ku deeqay. Waan qaadanaynaa oo ka faa'iideysanaynaa fursadaha noocan oo kala ah. Dadku waa ay rabaan, waana doonaynaa maalgashigan. Sida aan wada ognahay, ganacsatadu waa ay wada doonayaan maalgashigan, waa ay door bidayaan. Dhammaantood waa diyaar, waana jecelnahay in la helo maalgashigan oo kale. Wasiirka qorsheynta waxa uu sheegay in shuruudaha iyo habka loo fulinayo mashaariicdan ay ku qeexan yihiin qorshaha qaranka ee 9aad oo ay si wadajir uga wada shaqeeyeen dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Shirka halka dhacay waxa lagu soo bandhigay 3 mashruuc waaweyn oo fududeynaya maalgashi waddanka la gashado. Ganacsatada Soomaalida iyo dhammaan maalgashayaasha waddanka jooga kuwa dibadda ka imaanayana u sahlaya sidii Soomaalida ula shaqeyn lahaayeen. Qorshaha qaranku ku saleysan yahay qorshaha qaranka faahfaahinaya horumarinta ganacsiga gaarka loo leeyahay, horumarinta maalgashiga, dhiirigelinta soo jiidashada, marka fulintii qorshaha qaranka qayb ka mid ah. Maxamed Muuse Tarsan, warbaahinta qaranka, Muqdisho.